بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halkan iskugu nimi aan ka hadlaynaa annagoo dadkii reer Berbera cuqaashi waxgaradkii dhalinyaradii aqoon-yahankii waxaanu ka hadlaynaa arrin cusub oo nagu soo kordhay hadaan nahay reer Berbera magaalada Berberi waa magaalo xeeba waa magaalo biyaha ku nool lagama qadi karo biyaha qofna kama qatanaan karo hal mirir qofku maalintii 4 shirikaan ama 5 shirikaan ayuu kaliya isticmaalaa sida awadeed meesha xeebta waxa ku soo kordhay waxaanan hore u maqalo dhulka xeebaha aanan ugu maqal maanta reer Berbera haddii si gaar loo oran jiray cid gaar ah ka hadlaysa ama reer Berbera way midaysan yihiin qof kasto reer Berbera oo ku dhashay ama caruur ku dhalay wuxuu u taagan yahay siduu difaacan lahaa biyihiisa waxaanu leenahay biyahaasi bareefad ma noqonayaan aqli galna ma noqonayso waxaanu leenahay biyaha sidoodii ay noo ahaan jireen ee aw nooga mas'uul ahaa localku ee markaanu wax naga cayn noqdaan aan ugu iman jirnay barta localka aanu gaadhayno ayaanu leenahay wixii aan waxa ahaynba yeeli mayno mana dhacayso assalaamu calaykum wararta dawladani Berbera mooyee meel kale miyaan aqoon Berbera mooyaane meel kale Berberuun baa kala wareejinay kala waan iibinayaa gobolada kale macay indhaa ugu sida weyn maya way jawaabtu waxa weeye sida dhalinyaradu sheegtay annagu waxaanu ka xignaa dagaal annagu dagaal ayaanu ka xignaa halkii cunayna u dambeysana waan lahayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raacsanahay biyaha bareefag lagama dhigi karo annagu ka hadli mayno labaynanoo la isku bedelayo ka hadli mayno waxaanu ka hadlaynaa waa bareefag qolana ka hadli mayno waxaanu leenahay ilaa iyo tuugtigii biyaha Berbera way noo sabaynayeen boqolkiiba 30 baanu bixinaa boqolkiiba 30 inta kale waa bilaasho lookarkaasa kaba waxaanu adeegsanaynaa qodob tistoori baanu adeegsanaynaa 22 degmada laga doortay ayaa tistoorku u banaynaya biyaha iyo laydhka si gaar ugu banaynaya waxaanu leenahay aan isdhegeysano marka hore Somaliland wada tashi iyo isdhegeysi halka ku soo gaadhay haddaynu isdhegeysan weyno haddaynu tistoorka aynu qoranay ila dawladda ictiraafay manihin laynama ictiraafin baan idin sheegaynaa innagaas ictiraafnay haddaynu tistoorka aynu qoranay aynu ku kala baxayno aynu ku dhaqmi weyno ay noqoto la jiifiyana banaan wallaahi yeeli mayno tistoorkaas aanu adeegsanayna kooyo la tagaasa noo haynaya hadduu noqdo ka lagu wareejinaya mid maqaar saara annaga intaanu shaarka soo qabanna ka kicinayna annagoo qodob u adeegsanayna baanu ka kicinayna intaanu soo qabanna shaarka waxaanu leenahay sharci baanu adeegsanaynaa biyaha Berbera in badan baa lagu soo noqonayay Berbera in badan baa la dhaqaajinayay shisheeye iyo sokeeyba waa lagu wareejiyay biya yeeli mayno wandhiga gobolkan saaxil baa la yiraahdaa haato saaxil annagu inamo biyo isku wada hadlaya manihin laakiinse waxaanu diidanay biyaha nin kale bareefal baa laga dhigayaa wasiirka sheeganayo sida annaga wasiirran uga ahaan maysid macdantiya biyaha waxa taayna ma naqaano gobolkan saaxil baa la yiraahdaa 200 kuna inana qaawan baa jooga nin kasta 3 foosto ayuu habeen iyo maalin ubadkiisa isagu ku maydhaan ya hadduu leeyahay qasab baan ku siinaya bareefalka annagu yeelmeena waxaan ku xignaa xumaan iyadoo kowna lagaga siiyo ayaa maanta dhaantadii marka leey biyaha bareefal baa lagu wareejinaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. حكومة وحويا إلى وحقبته وواجب لكن تاني وحيال نبوي وعطار وحويا وحيال ذا نبطح وحيال ذا نبطح وحاد قيمة درب وسوق قاعدين لو شيء أساسي قاعد تيوقاتك وحويا حكومة دب هوقف في صارنتها أنت دب هوقف في صارت ودب هوقف النقطة إن لقوا ريش عد بريء فضبيها والله الكيل على خاتي كتاجرنا وأنسق الله قلت لك على وسع وبس بيه وحويا ضروري هذا يردك مجتمع باش بال يتاسو فيه هو سيسوي وحيابة وكلول وحجاية وعملوا بدلتها هذا ما قلت تدكم ما وادي كريان وحوي بالبراء
waxbaa berbere waxbaa galay waxaan galay ma laga baadhaayo ee annagu warma hayno wixii kale ka hadli mayno ee socday ee sidii la doonayey loo dhigtay kama hadlayno waxaa la yidhi nin hadduu kuu diido cunno hadhintuu leeyahy hadduu kuu diido dhaqashana ha dhaqduu leeyahy ninka biyahana bareefad baa ka dhigayaa berberinay dhimataa buu doonaya keligeed dhiman maysa somalilan baa dhimanaysa wallaahi nin walba albaabka uga gelaysaa inaan nino fadhiyaynin hargeysa iyo burca iyo berbere midna inaanu fadhiyayn marka halkaa biyo laga waayo ee biyaha laga jare laga qaxo waxaa yimaadaa waa xumaan nin walba halkiisa u tegaysa ha laga taxadiraan le ha laga daayo ha loo daayo lookalka biyaha iyo dadka gacanta ku haya ee degmada ah halka waxaa la odhan jiray ciise muuse wax diidaya ciise muuse waxaan sheegtaa ciise muuse diidi maayo berberaa diidaysa dadkii ilaahay dhigay baa diidaya dhankastaa ka yimaadaan ee wada ahaa haddii sidaa loo dayn waado waxaanu ka xigaynaa xumaan iyo halkii ay nagala boodi jirtay ay nagala boodiyeen qadaadaha ka boodiyeen xumaan baanu ka xigayna waa dhigay horta waxa weeye biyaha haddaanu kaalaba tashanno qaadaba adigu aanu wax kaa weydiinno kuwanu cabbayno kaana weydiin mayno kaalana tashan mayno waxna kaa weydiin mayno waxaana kaaga weydiinayna ma ogidba adigu haddaanu kaa weydiinnana waxa laaliyo waxaa doonto ka yeel adigu oo aanu kaala tashanana wax kaa weydiinno aanu ku xil saarno dowladda waxaanu sheegaynaa inaanoo gobolka saax dhallinyarada ku nooldahay aanaan ogolaynaa biyahan bareefadka bashidaalkii la qodaya biyahan berbere noqdeen waxaanu sheegaynaa inaanaan ogolayn dagaalka xidhna nafta iyo noloshii un biyuhu ku nool magaalada berbera waxaan leenahay bal dowladdan maalin walba bareefadka soo wadaay bareefadka bal gobollada u qaybi oo anagu bareefadka waynu ugu bateene dee bareefadka gobollada kale u qaybi waa maxay berbera iyo bareefadkan mar walba soo socda dooni mayno bareefad biyana laga dhigo biyuhuna waa quutu duruurigii hada wasalaam asalaamu calaykum raxiim halkan waxaanu idinkala hadlaynaa dowladday berbere bay iibsato laguma diidin waa naftii baad ugu soo gashay dadkii naftii baad noogu timi naftii iyo ubadkii qofka bini'aadankaee berbere jooga maalintii 3 foosto rushadiisa iyo biyihiisa iminka markaad bareefad ka dhigto ee nin aniga ila mida aad tiraahdo qaado hayso adigu iibi war waxaas wax la aqbali kara maaha waar berbere iskaga hadhaanu idin leenahay oo xishooda nimankiina wasiiradii waar xishooda oo berbere qaadi kari maysa biyo bareefade biyaha laga daayo bareefad wax la yidhaahdo halkaasaanu ka taaganno berberena isku raacsannay bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurba dhammaan berberi halkaasay idinkala hadashay waan dhigay hadalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaanu ka hadlaynaa annagoo waayeelkii waxgaradkii reer berberaa masaladan biyaha ee la leeyahay waxa lagu wareejinaya dad bareefada masaladaa reer berbera intay la eg tahay way isku raacsan tahay inaan cid bareefada lagu wareejin ee sida ay haddeer yihiin loo daayo waayo gobolkan waa gobol jilicsan biyaha aad buu ugu nugul yahay cid biyo la'aan noolaan kartaa daqiiqad ma jirto cid gaarana annagu duri mayno waxaan u sheegaynaa wasiirka iyo dowladda iyo cidda ay qusayso in biyaha loo daayo meeshooda assalaamu calaykum waraxmatullaah sii badin maayo waxaan u sheegayaa niman kale waxbaan wareejinayaa inaan doon gobolka saacid ku dhashannahay inaan geeri ka xignaba biyaha wareejintooda wassalaamu calaykum raxiim waxaan idiin sheegayaa haddaanu nahay deegaanka gobolka saaxil arrinkan la wado in badan baanu dhagaha furaysan oo haamaanu ka furaysan deked baanu ka furaysan maanta noloshii bilaadankaay maraysa geeri baanu ka taaganay somalilan iyo xukuumadda iyo ka maamulaya waxaan u sheegaynaa geeri baanu arrinkaa ka taaganay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh berbere haddaanu nahay ma aha in maqaarsaar kolba naloo soo qaado oo wax maqaarsaar noo keeno biyaha wixii aan sidaa uu lookalku mansuur nooga ahaa ama biyaha sidaa ninkaa noo hayey wixii aan ahayn annagu waa ka soo taagan
dagaal baanaanu ka ogol iyo xumaan haddii sidaa laga dayn waayo biyaha la doonayo assalaamu calaykum waxaan leenahay berberi biyo bareefada ma xamilaysa mana ogolaanayso wixii kaloo dhanba lala wada wareeg oo la wada qaaday biyaha iminka saacadda waxaan u diyaarnay inaanu goyaasheeda qoysano biyo waa kuwan ku noolayba dee saacadaan joogno qof walba goo qoysanaya hadduu biyo waayo qofna ma joogi kara berbera markaa waxaanu leenahay warbar wixii kalada guratee weli biyahaas yaana sukeen keenin reer beberana ishiisa laga arka ushiisa lala dhacaaye idinkuna dee ka kaxa barakaatu dowladda iyo wasiirka waxaanu u sheegaynaa haddaanu dadweynaha reer berbera nahay inay hore noo qaxiyeen dowladda xukuumaddan kulmiye 9 goor maanta intuu dambaysaa noo hadhoo ka tegi mayna waa ku dhimanaynaa ha ogaato dowladdu saasaanu u sheegaynaa mid daba jooga iyo mid guda jooga haddaanu reer berbera nahay biyahan maanta waxa weeye noloshii noogu dambaysay xagaag wuxuu lagu gaadha 740 digri waxa la doonayaa inaan maatidii intuu dambaysayna ka qaxino dagaal iyo gacan baanu ka dowladda u sheegaynaa hadday u soo dhawaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaanu nahay gobolka berbera gobolka saaxil barkii leeli biyihii waa la wareejinayaa dadweyne waa kaceen waa aragtaan koola waa aragtaan waay xukuumadda waxa ku soo dhibashay gobolka saaxil beelo waxa qorid wadadkii ku wareysay shacbiga ku wareysay biyihina waxa qorid shacbiga ku wareysay kowdi taalaga waxaan ku xirnaa dhimasho iyo dagaal ولقوا والله ولقوا بالله ولقوا تلغايا ولقوا هي